barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u dayman la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad Coach Maxamed Ibn Umar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada barnaamijkeeni kobciye iyo 10 cinwaankiisu yahay hakirayn caqligaaga. Caqliga waa nimco aad u weyn oo Allah ku galadaystay aadanaha, waana midka dadka uga duwan yihiin noolaha intiisa kale. Caqliga waa midka sababkiisa Allah aadanaha u saaray waajibaadka markii qiyaamo la tagana uu Allah ugu xisaabin doono. Caqliga waa midka qofku ku kala saaro xaqa iyo baadilka, xaqiiqada iyo beenta, dhabta iyo dhalanteedka. waana midka uu ku curiyo kuna soo hindiso aalado kala duwan oo noloshiisa wax ka bedela. Caqliga waa midka uu qofku ku fahmo una suura geliya inuu wax barto oo aqoontiisa kobciyo naftiisana horumariyo. Caqliga waa isha ay ka soo burqato xikmadda oo dad badani uga soocmeen dadkii ay la noolaayeen, waana midka lagu kala saaro dadka fayow iyo kuwa waalanba. Caqliga waa midka aan u adeegsano barashada Allah iyo u fiirsiga uunka kala duwan ee uu abuuray ee ku fiirsan dunida oo dhan, taasoo aan ka siyaasano iimaan xoogan iyo kaliyeelida Allah. Diinteena toosan ayaa aad uga hadashay muhiimadda caqligu leeyahay, wuxuuna caqligu ka mid yahay 5 ujeedo ee waaweyn ee shariicada Islaamku ilaalintiisu u timid. waxaa kaloo tusinaya ahmiyadda uu Islaamka siiyay caqliga in Qur'aanku xusay ereyga caqli iyo ereyada laga soo dhambaalayba ilaa 70 goor. Diinta Islaamku waa reebtay dhammaan wax kasta oo caqliga dib u keenaya ama wax u dhimaya habshaqayntiisa oo hoos u dhac u keeni kara. Qoonyahanka cilmu nafsiga ee lagu magacaabo Solomon Asch ayaa wuxuu doonay inuu sameeyo tijaabo cadeynaysa sida sahlan ee dadku caqligooda ugu dhiibaan dadka kale raacina uga noqdaan bedelkiisa ayagoo arkaya qaladka. Solomon ayaa la soo heshiiyay 6 qof, wuxuuna u dhiibay waraaqo ay ku yaalaan xariiqmo 4 ah oo ka mid ah wuxuuna u dhiibay waraaqo ay ku yaalaan xariiqmo 4 ah. mid ka mid ah xariiqmahaas wuxuu u bixiyay X, halka 3 xariiq ee soo hartay inuu ku kala magacaabay A B C. su'aal ayaa la isweydiinayaa oo ah 3 xariijan ee A B C koodee la dhirir eg xariijinta X. jawaabta saxda ah ee muuqata waa xariijinta A inay ku dhirir tahay xariijinta X. wuxuu kula heshiiyay 6 qof inay ku jawaabaan kulligood in xariijinta B ay la eg tahay xariijinta X. qof 7 ayuu ku soo daray kooxdii, wuxuuna weydiiyay su'aashii hadalka iyo jawaabidana wuxuu ku hormariyay 6dii hore uu la soo heshiiyay. markaas kulligood ku jawaabay in xariijinta B ay la eg tahay xariijinta X oo ah mid qaldan. qofkii 7 ayaa isna iska raacay qaladkii oo isna sidoodii oo kale ku jawaabay. isla tijaabadaas ayuu soo celceliyay marar badan, dad kala duwanna ku tijaabiyay, waxaana u soo baxday in 87% dadku iska raacayaan dadka halkay u badan yihiin, xataa iyaga oo u jeeda inay qaldan tahay, isla markaana caqligooda aanay ixtiraamaynin. ogow, caqligaaga ayaad kireysay markii aad iska baahiso oo faafiso fariin dhex wareegaysa baraha bulshada sida WhatsApp-ka oo ay ku qoran tahay sii faafi oo gudbi, bari waxaas ayaad helaysaa, ama waxa aad ku farxada ayaa arkaysaa, ama waad dhimanaysaa haddaadan baahinin, iyo waxa la midka ah. ogow, caqligaaga ayaad ijaartay haddii aad adoo caalim ah xaqiiqada dhabta ah ee cilmiga aad taqaano sheegi weyso, adoo raacaya sida bulshadu rabto ama dadku doonayaan ama kooxdaadu doonayso, oo aad diido inaad ka hortimaado sida loo badan yahay. culimadii hore ee dadka waxay ku barbaarin jireen inay raacaan markasta in raacaan markasta sida saxsan iyo waxa sugnaada
ee aanay qof hadalkiis isaga hoggaansamin ayagoon garanaynin waxa uu cuskan yahay ee xujo ah. maantase waxaa jira dad badan oo caqligooda u raaxeeyey ushana iska daba dhigtay dad kale oo wax kasta oo ay dhahaan ama kasoo fula dhahaya waan ku gowracannahay ayagoo aan eegaynin waxa xujadoodu tahay. ogow berri keliga ayaa lagu xisaabinayaa. waxaa laga yaabaa inaad nacdo ama kasoo horjeesato ruux oo aad diiddo xataa inaad maqasho inuu wax kuu sheego ama ku fahamsiiyo artidiisa adoo cuskanaya inuusan ahayn reer hebel ama qole heblaayo oo aad adigu horay ugu dhiibtay caqligaaga. dhalinyaradu markay ciyaartooy ama jilaab filim ama fanaan heesa ku dayanayaan qaab kasta oo uu sameeyo iyo dhaqan kasta oo uu la yimaado, sida tin qaabdarri loo jaro, sarwaal dabada laga xirto iyo qaabdarri kasta oo uu sameeyo ayagoon ogeyn waxa uu yeelayo iyo waxa uu qaabka u sameynayo, ayay noqdeen kuwo si sahlan uga kareeya caqligooda ciyaartooygaas ama fanaankaas. marka adoon ogeyn waxa ninkaas caanka ahi sameynayo inaad iska raacdo oo aad iskaga dayatahay waxay xadgudub ku tahay caqligaaga, waayo ilaah wuxuu caqliga kuu siiyey inaad wax ku miisaanto ee maahan inaad dhaan raac iska noqoto oo hadba dhankii loo badan yahay aad iska tahay adoon eegin ma sax baa mise waa qalad. isku day inaad adeegsato caqligaaga qiimaha badan wixii uu allaah ugu talagalay in loo adeegsado ee ha hawl tirin. iskuna day inaad fahamto waxa hareerahaaga ka jira. isku day caqligaaga in aad u adeegsato kala saarka xaqa iyo baadilka, samaha iyo xumaanta, cilmiga iyo khuraafada. alimaam abu xaniifa oo ah mid ka mid a imaamadii waaweynaha ee muslimiinta soo maray ayaa lasoo gaarsiiyey nin dhahaya Cuthmaan ibnu Cafaan oo ka mid ahaa 4tii nebiga hoggaanka uga dambeysay inuu yahay yahuudi. ninkaasoo dad badani caqligoodii u ijaareen oo hadalkiisii inta la boodeen ayagoo hubinin faafin ugu dhaqaaqay, suuqana geliyey. alimaam abu xaniifa wuu fakaray wuxuuna yidhi ii sheega halka uu ku yaallo gurigii. waxaa loo tilmaamay ninkii gurigiisa. maalinkii dambuu u tagay ninkii wuxuuna yidhi waxaan kuugu imid inaan kaa doono gabadhahaada midood. markaasuu yidhi ninkii soo dhawow imaam, adoo kale lama celiyo doonistiis. eeyaad u doonaysaa imaam abu xaniifa ayaa yidhi waxaan u doonayaa oon rabaa gabadhaada nin aada loo yaqaano, dadkiisana dhexdooda aada sharaf iyo qiimo badan ku leh, kuna caanbaxay wanaag iyo hodantinimo, oo aada u taqwo badan, oo iimaankiisu qanjaha joogo, xafidsan kitaabka ilaahay, habeenkiina aan salaatuleyl salaada xilliga dambe la tukado dhaafin, oo aada u oohin badan cabsida allah uu ka cabsanayo aawadeed. intaa waxaa u dheer inuu yahay deeqsi. oo markaasuu ninkii yidhi inta soo booday bas ku filan intaas imaamow. ninka noocaas ah qaar ka mid a tilmaamihiisa ayaa ka dhigi kara inuu u qalmo gabadha madaxweynaha muslimiinta, iska badaa gabadhayda markaasaa imaamkii yidhi laakiin ninkaas nuucaa ah ceeb ayuu leeyahay, aan raba inaan kuu sheego si aad u ogaato. markaasuu yidhi oo maxay tahay? imaamkii ayaa yidhi ninku waa yahuudi. ninkii ayaa asoo yaaban inta soo booday yidhi imaamow, ma nin yahuudi ah ayaad gabadhayda muslimadda ah u doonaysaa? ma arrinkaas ayaa ku bannaan sharciga ilaahay? markaas ayaa imaamkii yidhi sidee nebi moxamed ugu guuriyey Cuthmaan ibnu Cafaan labadiisa gabdhood asagoo yahuudi ah sida aad adiguba sheeganayso? xujo culus oo caqli weyni soo dhisay ayuu dul dhigay ninkii. markaasuu kasoo tegay isagoo afka taagaya. raac mar waliba dhagaystow sida saxan oo waafaqsan xujada iyo daliilka, haddii xataa ururka ama xisbiga aad ka tirsan tahay uuyan qabin. sida saxan u sheeg bulshada ku raacsan ama kaa dhagaysata cilmiga, daacaddana ka noqo aqoonta aad u gudbinayso, haddii xataa aad dad badan oo aad iskoox tihiin kaaga hor imaanayaan sidaas. mana wanaagsana inaad caqligaaga cid kale ka kirayso, si kastoo qiimaha lagu kireeyaa u sarreeyo, magac iyo sharaf ama nolol wanaagsantay noqotaba. waxaa keenaya inta badan in qofku sameeyo sida dadku rabaan ayadoo qaldan, xataa inuu rabo helidda taageerada iyo raalli ahaanshaha dadka, oo uu xataa wixii ay naftiisu qabtay oo saxnaa
u khilaafaya. waxaad arkaysaa qof dhahaya aniga shirkad hiblaayo maahane wax kale maba qaato alaabteeda ama dharkeeda, anigu markad hiblaayo kaliya ayaan ku labistaa, anigu isbitaal hebel maahane mid kale maba u doonto dawo, aniga waxaan ku duulaa diyaarada hebla oo kaliya. hagaag su-aal, ka waran haddii ay jiraan kuwo kale oo kana qiimi jaban kana tayo badan, adiga matayada iyo qiimaha shayga ayaa ku xukuma mise magaca shirkadaas uun? raadi adiga waxaad u baahan tahay ee munaasabka kuu ah, ee ha fiirinin cid kale iyo danteed. ahow mid adeegsada caqligiisa ugana faa'iidaysta sida ugu wanaagsan oo cidnaha ka kirayn caqligaaga. mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday, isku day inaad dhaqan geliso, siina faafi.